يا محمد عبد الله فرماجو أيها الأميرة الصومالية دوهم بليه سنة جوردي تضباط أساس كي قليه الأميرة الصومالية SYL هرسيد حبنمada dalka Soomaaliya madaxweynaha ayaa tilmaamay doorka wanaagsan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay maanta ka qaadanayaan horumarinta dalka hogaaminta ciidamada qalabka sida iyo dadaalada nafurnimada leh ee ay bixinayaan halyeeyada bahda caafimaadka oo dhalinyaro badan kuwaasi oo naftooda iyo noloshooda u huray sidii ay dadkooda uga samata bixin lahaayeen cudurka COVID-19 waxaa maanta oo ku aadan 15 May halkan ku xuseynaa sanad guuradii 7 ee ka soo wareegtay aasaaskii golihii dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL waxay mahad u sugan tahay allihii 13 dhalinyaro ee aasaasay ururka SYL ka dhaliyay Soomaaliya horseedna uga dhigay hogaaminta iyo kamira dhalinta halgankii muddada dheeraa soo socday ee keenay isku duubni dulqaad adkaysi wadajir midnimo iyo wadaniyada shacabka Soomaaliyeed sababna u noqday in lagu guuleysto taabagelinta dad xora iyo dowlad shacabkeeda ay ku faanto oo karaamo iyo sharaf kale ummadaha kale ee caalamka maanta 7 sano kadib dhalinyaradu maxay ka baran karaan tusaalooyinka SYL maxay dhalinyaradu maanta ku mutaysteen xaaladda cakiran ama dhibka ay ku jiraan maxay dadka ku hadaaqaya ama ku dhawaaqaya qabyaaladda u hayaan mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta jooga annagoo aragnay cashar fiicanna ka helay 30 sano ee ugu dambeeyay khasaaraha ee lahaan karto in qabyaalad iyo wadajir la'aan ay jirto dhalinyarada waa rajada kaliya ee dalku leeyahay dalkuna waa hodan dadkiisuna waa sabab waxaa looga bixi karaa saboolnimada dhalinyarada oo israacda oo ka shaqaysa dowladnimo wadaniyad wadajir iyo horumarka dalka dadka waxaa looga baahan yahay dulqaad dowladduna waxa ay ku hogaaminaysaa rabitaanka shacabka oo ku dhisan dimuqraadiyad iyo shaqaalaha sida dalalka horumaray dowladdu waxaa ka go'an in tallaabadaas ay hore u qaado sida aan horay aan uga shaqeynay dowlad wanaag waxqabad wada shaqayn iyo ammaanada ummadda in aan loo isticmaalin dana gaar ah maanta waxay ahayd inaan dabaaldegyo waaweyn ku maamusno taariikhdeenna dahabiga ah balse duruufaha uu sababay cudurka safmarka ah ee COVID-19 ayaa laga hakiyey dhalinyarada Soomaaliyeed maanta iyagaa hormuud u ah dadaalka xooggan ee dalka looga samata bixinayo cudurkan COVID-19 oo saameyn xoog leh ku yeeshay caalamka waxaan rabaa inaan munaasabadan aan uga mahadceliyo halyeeyada bahda caafimaadka ee dhalinyaro badan